ma u baahan tahay inaad heshid adigoonan energy-ga ka dhamaanin saddex qayb ayaan uga jawaabaya midda koowaad waxa waaye inaad waqti dheer wax akhrisatid iyo inaad si farsamaysan aad wax u akhrisatid labada marka maxay ku kala duwan yihiin dadka badanaa ama grade-kooda hooseeya ama iskuulka ku dhaca ma ahan dadaal xumo inay keento waxa waaye say wax u akhrinayaan ayaa qaldan qofka markuu waqti badan akhriyo wixii uu barto soo xasuusto waayo عاجز baa ka qaadaya wixii waqtigii ayaa dheeraaday so recallkiisa ayaa hoos u dhacaya ama informationkii uu dib u soo laaban lahaa ayaa hoos u dhacayo midda labaad waxa way maskaxiyan u daala qofka bini'aadanka waqti dheer ma fadhin karo wax ma akhrin karo so maskaxiyan qofkaas ayuu u daalaya midda saddexaad waxa way qofka reality markii loo hadlo qofkii 40 saac maxaa la jira 40 daqiiqo 25 daqiiqo typical actually studyada qaar xidhaan ilaa 25 daqiiqo ka badan qofka ma xifdin karo so la say marka 30 daqiiqo ka badan wixii dhaafsanood si fadhido waxa way waa caajis unless ad break yar qaadanaysid oo dhaxaysiinaysid midda afraadna waxa way comprehension ka qofka ka dhumaay inuu u comprehend garay wixii uu akhrinayo ayaa iyadana hoos u dhacayso marka maxaa way marka faa'iidada qofka markuu si maskaxiyan ama si farsamaysan uu wax u baranayo midda koowaad waxa way waxay kor u kacaysaa memory retention kaaga waayo ka soo qaad saacadii oo kale waxaad ka dhigatay 25 daqiiqo kasta inaad akhrisid waxa laga yaabaa waxaad ka dhigatay waxyaalo un baad isku daba ridatay midda marka waxay kor u qaadaysaa marka memory-gaaga inuu ama cashirka aad retain garaynaysa inay kor u kaco midda labaad waxa waaye efficiency-gaagana inuu kor u kaco waxa laga yaabaa wixii 5 saac 6 saac sidii kale kaaga geli lahaa maadaama aad waqtiyada kala gogoosatay inay kaa gasho 3 saacadood markii la isku wada daro midda saddexaad waxa waaye concentration-kaagana kor u kaca haddatan especially marka TikTok iyo waxyaaladan soo baxeen qofka bini'aadanka aad ba concentrated uma ahaan karo oo energy-giisa ayaa hoosa so concentration-kaaga isagana kor u kacaya midda afraadna waxa waaye understanding of topic aad fahmaysid imagine chapter aad akhrinaysaa chapter kasta oo sectionaad u kala goysay marba section aad isku dayday inaad fahantid so section-ka aad fahmaysaa aad ka gudbaysaa kana fahmaysaa at the end of the day chapter-kii zaid ayaad u fahantay haddii lala barbar dhigo inaad chapter-ka hal mar ay ama 7 saacad ama 2 saac ama 3 saacaad kor fadhidid oo soo xiriirta helo midda labaad waxa waaye ardayda badanaa